أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي لواءك المعقود وظلك الممدود لواءك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaynu marka kan dhextaal uga dhigaynaa xikmad aad iyo aad u xeel dheer qisooyinkeennii cibrad ku qaadadka mudnaa waa 10 walax 10kaa walax oo haddii ay yimaadaan sabab u noqda inaan ducadii ayaan kicin oon la ajiibin. waxaa inooga warrami doonaa culimmadii caamiliinta ahayd mid ka mid a caalim caabid ah zaahid ah ibraahim ibnu adham raximahu llahu tacaala. wuxuu soo maray suuqa basrada ciraaq. dadkii baa ku soo xoomay. wuxuu ahaa nin mustajaabu dacwo ah oo ducadiisu ay kacdo. waxaanu ahaa nin aada loo jecel yahay oo alla ka cabsi badan zaahidna ah caabudna ah. waxay yidhahdeen yaa abaa isxaaq, maxaanu intaanu rabbi barino oo ilaahay ducaysanno maxaa ducadana looga aqbali laayahay? wuxuu ugu jawaabay lianna quluubakum maatat bicashrati ashyaa. waxa wax laydinka aqbali laayahay oo ducadiinna u kici la'dahay qalbiyadiinnii baa dhintay. qalbiyadiinnuna waxay ku dhinteen 10 walxood. 10 wax baa dilay. waxaynu haddaba istul taagaynaa maxay yihiin 10ka wax ee qalbi dilaha ah ee haddii ay yimaadaan amba ay xasilaan sabab u noqonaya in ducadii dadku ay sacbada ay ilaahay hoos horsanayeen laga ajiibi waayo lagana aqbali waayo. alawal wuxuu yidhi ta ugu horraysaa waxay tahay caraftum ullaha walam tu'adduu xaqah. waxaad aqoonsateen ood garateen ilaahay haddana maydaan gudan xaqii uu idinku lahaa. waa qodobka koobaad. wathaani qodobka labaad wuxuu yahay zacamtum annakum tuxibuuna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam wa taraktum sunnatah. waxaad ku andacooteen ood sheegateen inaad rasuulkii ilaahay nabad iyo naxariisi guudkiisa ha ahaatee inaad jeceshihiin isla mar ahaantaana sunnadiisiina waa ka tagteen. thalith qara'tum alqur'aana falam tacmaluu bihi. qur'aankii rabbi soo dejiyey ee rasuulka lagu soo rogay ayaydun aqrideenood aqrinaysaan haddana aydaan ku camalfalayn oo dabaqaynoo dhaqan gelinaynoo noloshiina dhexdeeda uusan imanayn. waaraabic akaltum nicam allaahi walam tu'adduu shukrahaa. ta afraad waxay tahay nicmooyinkii ilaahay iyo galladii ilaahay wixii ilaahay uu nicmad korkiina yeelay ayaad iska daaqaysa cunaysaan isla markaana aydaan gudanaynin shukrinaqii iyo mahadnaqii ay mudnayd in ilaahay looga mahadnaqo nicmadiisaas. waalkhaamis qultum ina shayطaana caduwun lakum walam tukhaalifuuhu. tashanaad waxay tahay waxaad tidhaahdeen shaydaanku cadow buu idin yahay isla mar ahaantaana haddaba cadowgaasi maydaan khilaafin. intaad tidhahdeen cadow buu noo yahay ayaa haddana aydaan khilaafine isagii raacdeen. wasaadis qultum ina aljannata xaqun walam tacmaluu laha. waxaad tidhaahdeen jannadu waa xaq oo wax jira oo sugan hase yeeshee uma aydaan camal falan jannadii iyo camalkeedii lamaydaan iman. wasaabic qultum ina annaara xaqun walam tahrabuu minha. waxaad tidhaahdeen naartu waa xaq waa wax jira hase yeeshee kama aydaan cararin oo wixii lagaga fogaanayay lamaydaan iman. wathaamin qultum ina almowta xaqun walam tastaciduu lah. waxaad tidhaahdeen geeridu waa wax jira geeridu waa xaq geeridu way sugan tahay hase yeeshee umaydaan tabaabulshaysan oo umaydaan diyaar garoobin oo umaydaan darban waxa idinka dambeeya ee aakhirada ah. wataasic intabahtum min annawmi faاshtaqaltum bicuyuubi الnaasi wanasiitum cuyuubakum. ta sagaalaad waxay tahay
waxaad ka toostaan hurdadiinnii waad seexataan waad soo kaakacdaan oo waad soo toostaan waxaad ku faaftaan oo ku mashquushaan kolkaa ceebihii dadka idinkuna waxaad ilowdaan ceebihiinnii waxaanay ahayd 2 ceebood taadaa la dhowrtaa walcaashir dafantum mawtaakum walam tactabiruu bihim dhaaxaad aastaan buu yidhi dadkii idinka dhintay ood xabaalaha geysaan oo ku soo duugtaan oo ku soo cabaashaan hase yeeshee kuma cibrad qaadataan danta aynu 10kan ugu sii muhiimsanna waxaa weeye in aysan dadku waxyaabahan ugu waaweyn ee dhacaya ee ay ka mid tahay in axbaabtoodii iyo aqaaribtoodii iyo dadkoodii iyo jiiraankoodii ay dhimanayaan intaaba oo ay soo aasayaan oo haddana aysan ku cibrad qaadanayn waxaanay ahayd in lagu cibrad qaato qisooyinka kan sidoodaba waxaynu u soo aroorinaynaa in lagu cibrad qaato ilaahayna haynaga dhigo kuwii ku cibrad qaata wasala allahu calaa sayidina maxamed الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي لواءك